dhibka lagala kulmay inta masaajid cali guduud lahay waa ognahay aadaan ula soconnaa habeenay maalin shaashada kor fadhihaye meel hebel baabuura lagu qarxi meel hebel goor waa soo galan magaalada dhexdeedana guryaha dhexdooda wixii ay ka qoteen magaalada laga raacday waa aragnay meel kasta meena geli xagga bug waa aragnay qof caadi ah waxaas uma bareeri karin adika u bareerteen sharafteedii iyo karaamadeedii iyo maanta waa leedihiin Soomaalina waa leedahay maanta adduunyada Soomaaliya waa faanay waxay ku faanaysana waa waxa uu adika aad qabateen oo dhigiina aad u hurteen saaxiibaad jeceshihiin kugu fasal ahay kugu training kugu tababar ahay ka tirsanay ururkaada horintaada kooxdaada unugaaga yaa meeshan ama iyo meel kala dagaalka nimankan lagu jiro lagu waay laakiin wax ka qiimo badan oo lagu waay lahaay ma jirto waa dhima lahaayeen ma noolaa lahayn waqtigoodii intaas ku ekay intii dhimatay sariirtiisa ku kor dhima laha meel kale hadaan kugu dhiman xataa laakiin meel sharaf leh oo karaamo leh oo magaciisa Ilaahay idinkiis la xisi doono intaba ciidan xoog dalka Soomaaliyeed uu jiro dawlad Soomaaliyeed calankeeda ay bagbag leedahay hadii la yiraahdo iyo ku dhintay shahiidka runta ee shahiidayna waa kaas waay waxay diintu nafartay ee hal difaaca ayna tiri yaan u taaganahay sharafta karaamada عزك بن آدم قف كليه دينتيسا waxay ilaahay ay ogol yahay in loo dhinto waay ilaahay ma ogola in qof soo baxo 100 qof intuu isku dhax qarxiyo oo 50 qofood oo kamid dilo qontanka kalena oo dhaawaco ilaahay ma ogola raali kama ah saasaana dad ku dhinto hayaan maanta غيرkiin ah Soomaali ah jiilkii da'diina ah nimankan shayaatiinta ah ayaana saas u sabab ah oo maskaxdii ay ka qaadeen ka xadeen aqliga maskaxdii ka xadeen aqliga maskaxda bini aadamkan aad loo xadi kara maskaxdooda dhinac loo xada maana adika dhinac kala tiin ay aadi ummadda aad ka dhalateen ee aad leedihiin iyo dalka aad u dhalateen aad leedihiin iyo dadkiisu iyo diintooda iyo dawladoodu inay sharaf yeelato ay karaamo yeelato ay magac yeelato marka dalkan wadadii uu ku gaari lahaa sharafta iyo karaamada ummadaha adduunka dhan ay leeyihiin ayaad ku wadaan shacabka Soomaaliyeedna waa aragteen waa ku garab taagan yahay waxa aad sameeynaysan hadaan sax ah lahayn shacabku idima garab istaagi lahayn idin lamana dhiman lahayn laakiin maanta wali in badan oo kamid ah cabsidii ay nimankan dhowr iyo 10 sano 15 sano ay ku soo hayeen ayaa dad badan wali ku dambeeyay waa hubaa meeshaan markaad ka dhaqaaqdaan Ilaahay idinkiis oo the next target aad gaartaan dad badan inay soo bixi doonaan dadkii magaaladan jooga in badan oo kamid ah maxay u soo noqolayeen waa cabsi adduunyo mooga hooyo ilma dhashay oo laga yaabo inay geed hoostiis ama cid kale ay dulsaar ku tahay gurigeedii inay timaado ay ku noolaato waa jeclaan lahayd cabsidaasna annaga ka saareen waa ka baxe shabaab mugo ka quusto masaajid cali guduud iyo maxaan ku yiraahdaa dhulka u dhadhow inuu ku soo noqdo oo la arko markuu ka quusto dadkaasina quusto waa ka baxayeen raja soo galay waa soo noqonayaan marka dhalinyaro geesiyaashaatihiin dalkan waa u dhimateen waana waxa aad muxuu ahaay dad badan oo taariikhda idinka horeeyay oo meeshaan hadda lagu soo qulqulo oo xalana la leeyahay ninka la yiraahdo xalane maxamed cabdulla xalana la leeyahay ninka wuxuu dhintay dabcan tiisiya gashay laakiin inta cadowga xoog soo yeeshay oo raggii muxuu ahaay goobtaas dagaal joogay dib loo riixo Soomaalida ayaa meeshay deganay ayaa calankii oo meesha ka babanayo taagan waa kana hortiina ayaa laga soo cararay gadaal haduu fiir calankii meesha ka taagan dib u noqday calankaasi cadowga inta qabsado oo babiyo oo jeexjeexo dhulka inta dhigo oo ku istaagay iyo intaas dhibayso ka dhimanay waa ku noqoyay calankii uu soo dajiyay waa ku soo dhaawacmay asoo ordaa calankii wada yimiday dhaawacii u dhintay nin intiina inta fadhida u maray maayo maxamed cabdulla xalana qof aan maqlin magacaas wali ma jirto waa maqasheen laakiin waa huba intiina meesha fadhido in yar oo unda si kale u taqaano ma ogiye Soomaaliya ku ahay qof taqaano inay jirto idin u malayn maayo dhalinyaradiina magaciisina waa ka meesha marayo reer hebel daraadeed looma dhihin laandheero ahay looma dhihin reer ugaaso ahay looma dhihin maxaan wax kale looma dhihin
intaas qadiyadda kooska oo u dhintay qadiyadda oo u dhintay awgeed ayuu ku mutay in magacaas loo bixiyo xeeradaa lagu magacaabay oo xalana la dhihi jiray bootika la dhihi jiray yaanay ku magacanaa jirtay bootika inta laga fujaa la yidhi meeshaan xalana la yidhaah xalana loo bixiyey ilaa hadda haddii wax kale iyo cid kale ay degta xataa weli xalana waay magacii ka mid marka waxaan rabaa muxuu ahaay qofku uma noola inuu wax cuno iyo inuu joogo iyo inuu beesa yeesho bis qofku inuu magac iyo karaamo iyo sharaf ummadda dhexdeeda uu ku yeesho waayo wuxuu u joogaa guud ahaan magacaa soomaaliya waa ka dhunsan yahay waa ka maqan yahay magacii soomaaliya soo celiseen kii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed soo celiseen kenya soo celiseen waana idinkaga mahad celinaynaa malihin waajibkoodii uu ahaaye mahad iyo bogaadin iyo waxaad mudantihiin iyo abaalmarin intaba dowladdiinna iyo dad iyo tabarteedu waa yar tahay waxaa laga yaabaa qalabka u baahneedeen xataa inaad idin heli karin maasha allah kuulista qalabka u baahneedeen xataa maanta dowladdu oo dhammaystiran inaanay idin heli karaan laga yaabaa waxaad mudnaydeen oo noloshiina ah oo dhammaystiran maanta dowladdu inaanay ooda laakiin in la ilowsan yahay maaha in la idinka reebayo oo la awoodo laakiin la idinka celinaya maaha maalin walba intii la awoodo ayaa la keenayaa maalin walba intii la awoodo ayay dowladda la imaanay ayadoo saraakiisha iyo saraakiil xigeenka iyo dableyda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed geeday hadda maanta hoos jiifaane daar ay degan yihiin ilaahay idinkas ma dheero waa berri iyo berri dambe haddii alliina dhallinyaro waa idinsoo salaanay shaqada aad haysaan inaad raalli ka nahay ku faraxsannahay ku faanayno inaan idiin sheegnaan idinku nimidaya wax kale oo muxuu ahaay aan idinkumaanaan imaan aad iyo aada u mahadsantihiin inta dhiman iyo guulaan idiin rajaynayaa meel kastoo aad tagtaana sidaan iyo ka badan annagoo u wada soconno yaan idiin imaanayna haddii alla yidhaah aad iyo aada u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu